maarmaynin hadday gobollo kala duwan waxaan mahad u celinayaa allihii halkan maanta isugu keenay oo suurtageliyey annagoo nabada inaan halkan isugu imaanno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha xaaf oo runtii halkan nagu wada casumay iyo dadka reer Cadaado iyo guud ahaan shacabweynaha Galmudug xaqiiqdii si fiican oo sharaf leh yaad noo soo dhaweyseen waliba markaan nimid roob baa da'ayba soo dhaweey ka fiican ma jirto aniga iyo saaxiibkay waxaan salaan anaga wada qoyan iyo waliba markaan magaalada soo galay waxa ku taalay nabad iyo nolol waxa weeye waa halbeegeena weey waa kalmad fiican reer Galmudug oo u baahan yihiin nabad iyo nolol waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan u hambaliyeeyo golaha baarlamaanka oo runtii sameeyay wax aad iyo aad u wanaagsan election sax ah oo muuqda oo meel walba laga daawado runtii ka geystay oo halkaan lagu doortay madaxweyne xaaf waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii la tartamay fiicnaa iyaguna naftigooda oo runtii tartamay intii dadaalkooda sameeyay markii dambe aqbalayna ilaahay qadartiisa inay ahayd xaaf in la doorto waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha xaaf waa naqaanaa waa nin magac leh oo ummadda Soomaaliyeed magac dheer ku leh magac uu leeyahayna way tahay inuu ka gaaro ganacsiga meel sare haddana uu soo joongareeyay ama nagu soo biiray annaga dadka dawladda raba inay u adeegaan ummadooda iyo shacabkooda u adeegaan inuu ku soo biiray waa uga mahad celinayaa adeegaas bulshada ah wax sahlan ma aha waxaan ognahay markuu qofku murashax yahay uu tartamayo hadday tahay 5 bilood hadday tahay 1 sano waxaa ka xanuun badan hal maalin oo aad madaxweyne tahay oo go'aan aad qaadanayso culeyskeeda iyo stresskeeda iyo pressurekeeda yaa ka xoog badan macnaheedu waxay tahay mas'uuliyadda nasaaran mas'uuliyadda madaxweynaha saaran wax sahlan ma aha waxa weeye oo laga sugayaa inuu adeegii bulshada fuliyo u ballan qaado ay ugu horeyso waxbarasho inuu ummadda u keeno caafimaad uu ummadda u keeno amnigii ballan qaaday uu keeno cadaaladii uu keeno shaqo abuur iyo horumarin dhaqaale inuu keeno intaasna wax sahlan ma aha waa wax u baahan habeen iyo maalin wax sahlan ma aha macnaheedu waxay tahay intaas waxa bees u ah marka cadaalad oo muhiim oo ay khasab tahay in la helo sidoo sheegay madaxweynaha oo runtii aan ku taakulayn doono hadduu Ilaahay yiraahdo in la helo xabsiyo iyo maxkamado oo aysan dadku cadaaladda gacantooda ku qaadan oo qofka markuu wax sameeyo aan la oran waa reer hebel ee la yiraahdo waa hebel magaciisa loogu sheego si ummaddu ay u kala badbaado intaas oo aan sheegay oo adeeg laga rabo madaxweynaha wax fudud ma aha waliba iyadoo dhaqaale aysan jirin waliba iyadoo colaad ay jirto iyo waliba khilaafaad ummadda dhex yaalo wali oo u baahan muddo dheer wax badan oo laga hadlay halkan dib u heshiisiin wax la yiraahdo waxa la yiri ummaddu haddaysan nabad lahayn nolol ma timaado nabaddu waa base waa saldhigga bini aadan uu ku hormaro uu wax ku qabsado oo meeshu rabo ku gaaro laakiin haddii aan nabad la helin bini aadanku horuma socdo waxaan intaas leeyahay aasaaskeedu markaan leeyahay nabaddu waa dib u heshiisiin oo qof dadku kulli halkan yimid ka wada hadleen waa dib u heshiisiin iyo khilaaf la'aan dawladda dhexdeeda ah taasna runtii waxyaabaha colaadda keena ay tahay oo qoladan shabaabka ah ay dhibaatadooda noogu sii socoto maxaa yeelay waxaan haysta waa colaad dhexdeena ah iyo khilaafaad dhexdeena ah taas waxaan uga gudbaynaa inaan gaarno dib u heshiisiin dib u heshiisiintu waxay ka bilaabataa meesha ugu hooseysa waxaan idin sheegayaa markii aan isku daynay inaan heshiisiino ahlu sunno iyo Galmudug markaan damacnay inaan heshiisiino
waxaan u yeernay galmudug waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah guddoomiyihii baarlamaankii ku-xigeenkiisa wuxuu yidhi intaadan gaarin dib u heshisiinta maxaan ku idhaahdaa intaadan gaarin dib u heshisiinta ahlu sunna wa jamiica horta annagana heshiisiin anigii guddoomiyaheyda waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka meeshaasaan dib u heshisiinta ka bilaabna horta markay heshiiyeen yaa waxaan u gudubnay ahlu sunna wa jamiica iyaduna waa gaari lahayd meel fiicane waktigaan ugu yaraaday macnaheedu waxay tahay khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah iyada naftigeeda dib u heshisiin iyay u baahan tahay marka madaxweyne iyo baarlamaanka halkan fadhiya khilaafaadka iska yareeya si aad ugu gudubtaan meelaha kale loo baahanya dib u heshisiinta waxa khilaafaadka keena waa naqaanaa wax kale ma aha waa inta badan siyaasadda shaksiyeed wey siyaasaddan ayada wey waxaan aaminsanahay bacdamaa madaxweyne xaaf uu ka gaaray meel sare ganacsiga in dan shaksi ah uusan ka soo raadsan dowladnimada ay tahay inuu fuliyo adeega dadweynaha inuu fuliyo sidaas darteed waxaan rajaynayaa isagii baarlamaankiisa inaysan khilaaf imaan doonin oo labada sano soo socota si nabada ay ku wada joogi doonaan kadibna ahlu sunna oo jamiica la keenayo iyo maxaan ku dhahdaa magaalada gaalkacyo dadka degan ee waalihiina aad isugu gudbaysaan insha allah hadduu ilaah yidhahdo khilaafaadka dhibaatada ay leedahay waxaa ka mid ah waan rabaa inaan xasuusiyo oo dowladda dhexdeeda ah kuma eka maamul goboleed dowladda federaalkana waa taallaa oo maalin walba dad baa waxay raadinayaan khilaafaad raadinayaan inay ka dhex abuuraan dowladda dhexdeeda hadda markii aan tegay jabuuti safiirkii waa naga tegay hadda markii aan jabuuti tegay oo si fiican naloogu soo dhaweeyay aniga waftigeyga waxaan tagnay deked ee ku baxday 400 oo milyan oo dollar ee ku baxday maalintii la dhex dhigayay waxaa tegay ra'iisul wasaare federaalka ka socday anigana xarigaan ka jaray oo anaa furay intii u dhaxaysay Soomaaliya waxay soo marsay 3 dowladood oo kala dambeysay meesha Djibouti ay ahayd hal dowladeed waxay dhisteen deked 5 jeer ka weyn dekedeed waxayna ku gaareen waxay tahay khilaafaad la dhexdooda iyo xasilooni siyaasadeed sidaas darteed ogaada tanaasulku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka dawliga ah hadday dowladdu dhexdeeda ee khilaafaadu ka jiro ganacsi ma jiri karo inkastoo ay tahay ganacsatadu ay tahay xubinta kaliya hadda Soomaaliya u hartay oo shaqaysa ay tahay iyaga naftigooda horumarkooda waa kooban yahay markii dowladda dhexdeeda uu khilaafaad ka jiro sidaas darteed dowladdan sidaad aragtaan anna koofiyad maanta aan qabo inaan nahay madaxweynayaasha halkan fadhiya oday dhaqameedyo nabadoono inaan nahay oo aan ka shaqeynayno dib u heshisiinta aan ka shaqeynayno waxaan naga nagu ballana oo mar walba aan ka wada hadalnaa in aan ka shaqeyno wax alla wixii danta guud u adeegaya macnaheedu waxay imaanaysaa markaasi in aysan jiri doonin wax annaga dhexdeena aan isku qabsanno ama na dhex yaalla waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmayaa madaxweyne xaaf iyo madaxweyne gaas oo aan ogahay labadu inay yihiin nabadoono inay ka shaqeeyaan magaaladaas dadka waalaha oo degan inay isu furaan hadday siyaasiyiintu heshiiyaan waxaan aaminsanahay shacabkuna waa heshiinayaan haddaa aragtaan magaalo kala xiran iyo ummad aan isu tegaynin madaxdii baan heshiis ahayn annagu marka federaalka doorka aan qaadanayno waxay tahay labadan nin oo waala ah iyagaaba nooga horreeyay nabadeynteed inaan fuudeenno hawshooda aan facilitate garayno in dib u heshisiin dhab ah oo waarta oo labada community labada dad ee waalaha ah ee ku dhaqmaan sanooyin badan oo soo socda haddii ay bayiraahdeen waxaan markhaati aan ka ahay dagaalkii ugu horreeyay markuu ka dhacay gaalkacyo oo labada community oo degan ay dagaaleen wasiirkii aan u diray ugu horreeyay wuxuu ahaa wasiir cabdiweli oo markaas ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeen isaga iyo wafdi uu hogaaminayay markiiba dhibkii waa xaliyeen wixii meesha taagnaana waa fuudeeyeen wixii markaas ka dambeeyeen magaalada waxay noqotay nabad haddana alxamdulillah isagii baa madaxweyne ah nin oday oo halkan oday dhaqameedan waa ila taagan yahay waxaan faraynaa hawshii ay bilaabeen markaas 2010kii ay bilaabeen inay dhammaystiraan oo aan aragno bilaha soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo inay ka keenaan magaaladaasi inay noqoto magaalo nabadeed oo dadka degan siday ahaan jireen waala ah oos dhalay oo wax walba wadaaga yaan ka rajaynaa doorka
ay dowladda federaalka leedahay waxaa naga go-an mar walbana waa sheegnaa dowlad goboleedyada iyo annagu inaan wada shaqeyno inaan noqono partners dad shirka ku ah Soomaaliya nabadeeda iyo horumarkeeda inaan noqono wayna noo bilaabatay environmentgaasna waa noo jiraa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waa xoojinayna xiriirkaas qaybta kaga soo aadan federaalka waxaa naga go-an wax alla wixii aan kari karno oo karaankeena ah inaan ku taakulayno annagoo weliba tabarteenu ay yar tahay oo aad ogtihiin dhaqaalaheena meesha uu marayo iyo xaaladdeena saad ogtihiin waxaa naga go-an wax alla wixii karaankeena ah inaan ku taakulayno hadday noqoto mushaharada ay siinayaan ciidamadooda hadday noqoto waxyaabaha kale oo horumarinta ah waxaa intaas dheer waan ku soo gabagabeynaya waxaa noo soo noqday runtii sharafkii iyo karaamadii aan ku lahayn caalamka waa noo soo noqotay waxaa taas markhaati ka ah gabadhii halkan taagneyd oo safiiradda ahayd oo European Unionka matalaysay inay nagu soo wareejisay dowladda dhexe ku soo wareejisay saxiixii iyo approvalkii ay lahaan jireen iyagu oo maanta gacanta ay nagu jirto wax alla wixii development ama horumarin ah annagu inaan leenahay go-aankeeda oo aysan noqonayn wax iyagu ay noo goonayaan go-aankeeda ay leeyihiin annagaa iskale go-aankeeda annagaa bixinteeda iskale go-aankeeda ciddaan siinayn annagaa iskale go-aankeeda laakiin waxaana laga rabaa annagu inaan la imaano dowlad hufan oo transparent ah inaan la imaano runtii taasna waa ku heshinay daraad iyaan qalinka ku hejidnay 240 milyan ay sheegeen inay noo hayaan inaan annagu maamulayno oo aan u maamulayno baahida aan qabno aan u maamulayno oo ay kow ka tahay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada baahidooda ay kow ka tahay waxaa intaas dheer safaradii aan galay hadda wixii nooga soo hagaagay Sacuudiga ugu horeeya waxay ballan qaadeen runtii lacaga horumarin oo aad u far badan annagu waxaan weydiisanay $4 billion yaan weydiisanay nagama aysan diidin waxay yiraahdeen wax alla waxaad u baahan tihiin diyaar yaan in la nahay koow waxaa ka ahaa in airport cusub la sameeyo la dhiso in daarihii kulli dowladdu ay lahayd oo meel walba ku yaalla dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba xamar ku yaalla in dib loo cusboonaysiiyo jiidadkii xamar soo galayay in la dhiso waxaa intaas dheer in waxbarashada hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto ammaanka hadday noqoto inay gacan naga siiyaan waxay ballan qaadeen innaba ha yaraatee inaysan lacag limit ah aysan ku xirnayn oo ay ku xiran tahay annaga baahideenna iyo wixii aan geysanno iyo kartideeda inaan leenahay ay ku xiran tahay taasna waxaan ka kaashanaynaa baahida dowlad goboleedyada ay leeyihiin maxaa yeelay keliya maaha iyaga waxaa ka maqan daaro loo dhisa maaha waxay u baahan yihiin inay caafimaadka dadkooda horumariyaan waxay u baahan yihiin inay waxbarashadooda horumariyaan waxay u baahan yihiin dhallinyaradooda shaqay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amni ayay u baahan yihiin waxaan ogahay aan hubaa lacagta laga aruriyo tax base-ka ah inaysan ku filnayn yaan ogahay sidaas darteed inaan ka kabno annaga haddaan nahay federaalkii runtii waa naga go-anta waana ku khasbannahay committedna waa ku nahay hadduu ilaahay yiraahdo ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed oo 27 sano soo dhibaatootay maanta waxaan haysanaa system dimuqraadiyad ah maanta qof xoog ku yimid mala oo ugu dambeeyo walaalkay xaaf taasna waxaan ku mudanay ammaan caalamka waxaan ku mudanay ammaan yaan ku mudanay oo weliba dowladaha carabaha intooda ay leeyihiin Soomaaliya wax looga daydo malaha laakiin in looga daydo dimuqraadiyadda inay tahay taasna runtii wax ka yimid waa idinka waa biseelkiina weeye biseelka shacabka Soomaaliyeed 27 sano ay ku jireen oo maalin walba nin qaloocan uu lahaa aniga raaco oo qabiil igu raaca inay ka soo jeesteen ay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan raacno qofka wanaagsan annagoona qabiilkiisa shaqo ku lahayn taasna waa waxaad ku ammaanantihiin laakiin enough ma aha waxaa loo baahan yahay inaad ilaashataan yaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dowladda hadda aad dhisateen inaad haysataan oo 6 bilood walbaba nin siyaasi ah oo khaldan oo dana gaara leh inuusan adeegsan qabiil inuusan dhaqaale adeegsan si uu boos isagu ugu fariisto waa in waqti la siiyo 2 sano waa yarta 4 sano waa yarta waxa dhibaatada na gaarsiiyay waxay tahay 27 sano aan ku soo jirnay tanaasul la'aan iyo xaqiiqdii runta markaa sheego fudeed iyo dulqaad la'aan hadda runtii waxaan aaminsanahay inaan ka baranay dhibkii aan soo marnay dowladaha aan haysano aan adkaysanno
مشروعية السعودة ولا ليه موشين هلا سمي ودنا شخصية كشقينا هلا جوجي وما شقينا يسوق موشين كان شعب الصومالي ويل كيار يقبل يار الصوماليين قاعد عاول لجيفته أما عذوك لجيفته وشقين ميس وحوي إن إذا هو استاكتان دولة دان ودولة شعبه أخذت كل دورتين دولة أنا قاعد ممكن ودولة شعبه ونبوي أنا وحيصدر تحل بانه حل بانه وسوي حكومة مالي ربيتان شعب أنا وحكومة ربيتان شعب ولا كان حل حكومة ربيتان محمد على شعب الحكومة إيوه جود أهم مدحونياش هالكن إلى فردية إيوه كل جيمبا أنت حل بانه ربيتان شعب يا كنت معتين سياس كرتين وحن ليه شعب الصوماليين وإن أي دولة أي ليه على عوديان سيد دولة جيبوتي 6 سنة كبعدي إسلا الدولة دي يوجوكتو أيو مستان دكاتره جوين جيست أفريقيا وحيكون جارين حسلوني يدقناشو سياسة يكون جارين أنا كان هذا وابرنا وحين كعب صنايع شعب الصوماليين إني أتاجنادان وهلنادان إني أسوجيدان تاجران دعنسيان قرب استاجان دولة هذه قرب استاجان هذا هاي دولة قبلات يا هذا هاي دولة ده هذا أنا وحاجة قان دولة هان حلقة فردية إن الله شقيه واحد كستأي قبائل إن الله شقيه إن الله قرالين إنما هيراتين عرقلا سياسة إن الله قرالين حسلوني سياسة إن الله قرالين إن القرب تاجناده إيجانا وحلقة ربا دولة ده حين قرب تاجناده وعالم حتى إن قبرتان دولته إن وقت وضع ما يستار أو دولة كلا يقدم بيس أو ميت كلا يقدم بيس تاسنا رتي ومدلنا هاي شعب الصوماليين ومدينين أنا قلنا وأبي أرسلنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.